luqadda Boortaqiiska waa luqad jecel ee ka tirsan qoyska luqadaha Indo-Yurub ee ka soo jeeda jasiiradda Iberian ee Yurub. Luqadda Boortaqiiska waxaa ku hadla in ka badan 260 milyan oo qofood oo ku nool dunida daafaheeda. Afka Boortaqiiska waxay luqadda koowaad u tahay 10 waddan oo kala ah Brazil, Angola, Cape Verde, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe, Macau, and East Timor. Dadka iyo wadamada ku hadla afka Boortaqiiska waxaa loo yaqaanaa Lusophone, sidoo kale loo yaqaano dunida Lusophone. Afka Boortaqiiska waxaa ku hadla qiyaastii 200 milyan oo qofood oo ku nool Koonfurta Ameerika iyo 30 milyan oo ku nool Afrika iyo 15 milyan oo ku nool Yurub iyo 5 milyan oo ku nool Waqooyiga Ameerika iyo 0.33 oo ku nool Aasiya iyo Oceania. Marka loo eego qiyaasaha ay soo saartay UNESCO, luqadda ugu kobaca badan luqadda Ingiriisiga kadib, luqadda Boortaqiiska waa luqad caalami ah oo si rasmi ah loogu hadlo 5 qaaradood. Luqadda Boortaqiiska waa mid ka mid ah 20 luqadood ee rasmiga ah Midowga Yurub. Luqadda Boortaqiiska waa luqadda lixaad loogu hadalka badan yahay caalamka. Xaqiiqada ugu yaabka badan, luqadda Boortaqiiska kaliya 5% dadka ku hadla afka Boortaqiiska ayaa ku nool dalka Portugal. Luqadda Carabiga ayaa saameyn ku leh luqadda Boortaqiiska. Luqadda Boortaqiiska waxay leedahay kelmado aad u dhaadheer. Ereyga ugu dheer afka Boortaqiiska wuxuu ka kooban yahay 46 xarfood. Baasaboorka Boortaqiiska waa kan shanaad ugu awood badan caalamka. Luqadda Boortaqiiska waxa ay noqotay luqad rasmi ah sanadka markuu ahaa 1209. 5 May waxaa loo dabaaldegaa maalinta caalamiga ah luqadda Boortaqiiska. Luqadda Boortaqiiska waa luqadda saddexaad ee loogu isticmaalka badan yahay internetka. Dalka Brazil ayaa ah dalka ugu badan ee ku hadla luqadda Boortaqiiska adduunka oo dhan, kuwaas oo gaaraya 212 milyan oo qof. Dalka Mareykanka waxaa ku hadla 693,000 oo qof afka Boortaqiiska. Ku dhawaad 60,000 oo qof ayaa ka kooban bulshada dhagaha la' ee dalka Portugal, waxayna isticmaalaan luqadda farta ee luqadda Boortaqiiska. Ugu dambeyn, haddii aad xiisayso barnaamijka luqadaha taxana ayuu noo sii ahaa doonaa. Haddii aad ka heshay, fadlan muuqaalkan share leh si uu dad badan u gaaro. Hana ilaawin TikTok in la follow soo dhacdo. Mahadsanid.